قوسي كنت أنا ذا الوقوقي والله وبالله أطلع إن هذا ناقن إكرم وناقن إكرم هاي استعمال شاولات باتاي أنت رتاي صارنا يساي نين كان إمام لابد إنه رئيس ومرتي لابد إنه ديق بقى بيت ديق ساس بيها يقول هذه أدر أنا كمان هيك بقى أنت اللي يجي بدو أروس أنس كبرني بالله يسحر هذا مالك يقول رسول قدر اللي يسمي مالك يبهران كراع إنا لله وإنا واسكلا سيحاني سأدو قبل ما فهمت أنا قبل بس كلا سيحاني صدح بلاد قدال بنك مهرش والله بالله تلاي وحنكوري الماء إيمان كره نوبة إيمان كرته شو قبلي هاي هديك لو كاتك يا بنكوري كمان هيك بنقول لابنا يا هديك لو قالوا مهرك صح أدير بلا مهر بنقول الدجنا أديك ودحوا آخر وبقي الله آخر وبقي نلاش هاي ستة مدك له أنت وجهي أتكار كيس أنا متركي ذا كلام دركتين تركي ذا كلام يا دركتين أقص أنا جايكان أنا جايكان أيدي بكتي القحون أيدي إنا لله وإنا راجعون أدير ويل صفر عام بana هي العام أدير ويل كذا صدق شنو ويان كويري هاركن مريان هذا أنا قلي أنا وهارك أقص نينك دار كذا كشيء كان أدير دقيقة هدي شرتي هذا يا عدد وجيه شن بنسو قرصدي دقيقة هدي شرتان كوري دقيقة هدي شرت ولا يد سوقر نيك إنه دبالة سومالية أدين شيء أنا قال لك إلهي أستري إن دبال هالسنة الله نور هذا لك الحمد لله أنت بدن حق شقوجري ما أنت نقول ما قيها بينك ما أنا صبيح ورد المجري أنت وجوه بينك العنق سوقها هنجري ما كلا تحت ويع ونجري نين كان رجع عونات حتى وقف يعني جوريجا وحكستو نولشة كالس كارك بكوس ناكتان قروح بدن ورواجع لنا وكبر لكن جعلك وقلوبيا ما إسكي ماناي يا جوه مركا ما حتري ويلك الرديني محوك وقفري ما يفريه وريا ويلك رديني ما حي وفرتي إيش ما حي وفرتي أبا إخواتك ما حدها هاي قبيلك رديني أنا يفري سامع مايا ور أنيقة فيري أبين إخواتك ما حدها هاي فرو هرت محاوق دقيسي واحد قطر أقف كده مش أقرأ ور أول ما أنا اللي فريو أراس قراب حاجة قلت أنا نكان ولين إما فرن إجابة تجين ولا على معاني هدول تجنا عد وجوجين يسمعنا هنا نجد داعي خصوصي بخ ده نكان أساوي جنو كجر مليون روب لهسته نايتان ساس قطرته وهو وحنكون هيو سومالي ونكان أحمو خطو نكاسته مرديني أنا يفركره إيجابة جنو كجران ولا رديني وهذا السلام أبين خواتك المحن هاي سأسوس عتني كردين وراها يعوني نقول هنيك شقة إجرا شقة هلا كتمة ورياضة ديك والله إن جال بتنا هقول هنا بروني هذا كل عيارة ولا سس هذي كوني كنا سس ده هذي بيجي يوغان واد دوبيسين وان اوغاهي با waxa ku taageerinaysa naagta oo la dhaxayo milyan roble abaaye moodna qabad baa tahay abaaye macaantoy si walaaltinimaan kula hadlaaya gabar Soomaaliyeed baa tahay waxba igu maad sameeynin ma ku aflagaadeenayo waxba ka ku cayn maayo hooyaa tahay umul baa tahay wax kaliyaata oo ku anfacale ku sheega hadaa qaadanaysid wad qaadanaysaa hadaa ka tagaysid wad ka tagaysaa walaashay macaani ma fahanti up to you laakiin kuma aflagaadeenayo waxba iga ka soo gaari maayaan just waxa ku leeyahay kaliyaata ma taqaana abaay macaanta umulaa tahay shalay baa umushay waxaa jira wax oo xanuun oo ku dhaca dumarku markay umulaan ma fahanti hadaa buuqan iyo qayladan iyo balaayadan aa ku dhex jirta iska deewaysid naftaada ay ka go'antay walaashay tan kale maanta dhan waxa ku heesaa reer hebelow macaanta reer hebel waxba ka ma gelin fahanti reer hebel nin baa ku qaba dadkan aad la dagaalamaysaa amal shaydaan amal yihiin sababta ma taqaana because ma garanaysid maanta dhan dad aanad garanayn baa dagaal kula jirta so ani waxaan ku dhihi lahaa macaanta energy-gaaga save garayso iska fariiso life-kaaga maxaan dhahdaa iskaga jir bal markasta ku xisaabtan qofka ku qaba adiga inuu hal nin yahay oo aysan dadkan ahayn because dadkaanayto social media jooga dhammaantood waa wada fake qof oo inuu account-kiisa saxda soo qaato ku soo hor fadhiisan kara oo ku caayi kara haba yaraatee ma jirto marka de macnaheedu waxa waay walaashay shaydaan bad la dagaalamaysaa shaydaan jinni dadan la arkayn bad la dagaalamaysaa dadkaanita ayaga ku kasaaya
because life aad aadaa because noloshaada banaanka soo dhigtay dadkaanito waa ku qasban yihiin inay kaa hadlaan sababtoo ama caantoy haddaanad rabin in lagaa hadlo social media iskaga tag daacada iga taa walaashay xumaan iga maahan haddaad xumaan u qaadato ba adig ku taala ma fahantay dadkan ma aragtay way ka hadlayaan habeenii maalin sababtay kaaga hadlayaan waxa waay way ku arkayaan way ku daawanayaan way ku fiirsanayaan hadalkaaga qofku markuu ka dhiibto fikradiisa ma aragtaa macnaheedu maahan inuu ku ataagareynayo ama ku caynayo because the more lagu hadal qaado the more adiga aa popular sii noqotay ku noqonay walaashay qof kasta lama dagaalami kartid ba adiga waa kuu fiirsaday qof kasta baad rabtaa inaad la dagaalantid reerkanna hal ninaa kaa qaba ninkaaguna wuu kula joogaa asoo ku difaacayana waa ku arkay maasha allah allahay sukiin daayo badanahaaga ka raaco oo dadkaanito la dagaalamaysa wadadan la arkine faraha ka qaada ku dhiilaa because for you bitch kasasa iga soo baxisabin imaan adoo qaylinaysid qanaasi kuma fiicna umulaata walaashay iska fadhi meeshaadaas cunugaaga iska korso ninkaaga wuu ku faraxsan yahay wuu kula joogaa ka qabiilkii oo dhan kaaga soo gaay waaba nin fiicanba maasha allah ana hadda asiga ku aan lahabin adeeg ba ku furi lahay wallahi billahi tallahi inkastoo nin qabiil ka siinba waxaan shaqadeed ahayn ba waxoogaa haddana maskaxda iskay dhaafi lahayd ma ogido ba anyway allah isukin barakeeyo ba waxaa ku dhiilaa mataqaanaa jina looyaa tahay umul baa tahay wax kaliyaata oo ku anfacalay kuu sheegaa haddaa qaadanaysid waad qaadanaysaa haddaa ka tegaysid waad ka tegaysaa walaashay macaane ma fahanteed up to you laakiin kuma aflagaadaynayo waxba iga kaa soo gaari maayaan just waxaa ku leeyahay kaliyaata mataqaanaa abbaay macaanta umulaa tahay shalay baa umushay waxaa jira wax oo xanuun oo ku dhaca dumarku markay umulaan ma fahantay haddaad buuqan iyo qayladan iyo balaayadan aa ku dhex jirta aa iska diin weysid naftaada ay ka go-an tahay walaashay tan kale maantoo dhan waxaa ku heesaa reer hebelow macaanto reer hebel waxba kaama gelin ma fahantay reer hebel nin baa ku qaba dadkan aad la dagaalamaysaay camal shaydaan camal yihiin sababta ma taqaanaa because ma garanaysid maanta dhan dad aanad garanayn baad dagaal kula jirtaa so ani waxaan ku dhihi lahaa macaanta enerjigaaga save garayso iska fariiso lifekaaga maxaan dhahdaa iskaga jir bal markasta ku xisaabtan qofka ku qaba adiga inuu hal nin yahay oo isa dadkan ahayn because dadkaanayto social mediaha joogaa dhammaantood waa wada fake qof oo inuu accountkiisa saxdaa soo qaato ku soo hor fadhiisan kara oo ku caayi karaa haba yaraatee ma jirto marka dee macnaheedu waxaa waaye walaashee shaydaan baad la dagaalamaysaa shaydaan jinni dadaan la arkayn baad la dagaalamaysaa dadkaanita ayagaa ku kasaaya because life aad aadaa because noloshaada banaanka soo dhigtay dadkaanito waa ku qasban yihiin inay kaa hadlaan sababtoo ama caantoy haddaanad rabin in lagaa hadlo social media iskaga tag daacada iga taa walaashay xumaan iga maahan haddaad xumaan u qaadato ba adig ku taala ma fahantay dadkan ma aragtay way ka hadlayaan habeenii maalin sababtay kaaga hadlayaan waxa waay way ku arkayaan way ku daawanayaan way ku fiirsanayaan hadalkaaga qofku markuu ka dhiibto fikradiisa ma aragtaa macnaheedu maahan inuu ku ataagareynayo ama ku caynayo because the more lagu hadal qaado the more adiga aa popular sii noqotay ku noqonay walaashay qof kasta lama dagaalami kartid ba adiga waa kuu fiirsaday qof kasta baad rabtaa inaad la dagaalantid reerkanna hal ninaa kaa qaba ninkaaguna wuu kula joogaa asoo ku difaacayana waa ku arkay maasha allah allahay sukiin daayo badanahaaga ka raaco oo dadkaanito la dagaalamaysa wadadan la arkine faraha ka qaada ku dhiilaa because for you bitch kasasa iga soo baxisabin imaan adoo qaylinaysid qanaasi kuma fiicna umulaata walaashay iska fadhi meeshaadaas cunugaaga iska korso ninkaaga wuu ku faraxsan yahay wuu kula joogaa ka qabiilkii oo dhan kaaga soo gaay waaba nin fiicanba maasha allah ana hadda asiga ku aan lahabin adeeg ba ku furi lahay wallahi billahi tallahi inkastoo nin qabiil ka siinba waxaan shaqadeed ahayn ba waxoogaa haddana maskaxda iskay dhaafi lahayd ma ogido ba anyway allah isukin barakeeyo ba waxaa ku dhihi lahaa mataqaanaa jina haddii aad nabadgeliso dadka muslimka ah adiguna waad nabadgelaysaa laakiin haddii aadan nabadgelin dadka muslimka ah ha ka yaabin in aad adiguna nabad gasho
soomaali baa hore u mahmaaday oo waxay tiri labadii laqdaba ku heshiisaa lillaahday ku diraan milyuun roble abaayo mid ku anfacayso adduun iyo aakhiraan kuu sheegayaa ilaahay u toobadkeen markaas baad qaboobaysaa intii ka horeysane sidaan un baad ahaanaysaa